بسم الله الرحمن الرحيم ayaan le waad mahadsantahay mar kale inaad igu soo casuuntay ha noolaato si aan uga warramo waxa dhacay 1989 waxayna dhaceen hal bil oo qura ahaatee bishaas oo ahayd bishii July marka koobaad waxa dhacay dilkii baadariga weyn ee caasimadda Muqdisho Salvatore Colombo oo la dilay 9kii bishii July asaga oo ka soo baxay iridda kaniisadda weyn ee Xamar goor galaba ayaa baabuur Land Cruiser laga dhex toogtay xabada ayaa lagu furay meesha ku dhacay safaaradaha ajnabiga ee wadanka jooga dilkiisa waxay la xiriiriyeen maarayihii hargaha iyo saamaha oo taliska militariga ka tirsanaa aadna ugu dhawaa hogaamiyaha militariga hase ahaatee taliska militarigu wuxuu ku eedeeyay sida dokumentiyada ku cad in ay mas'uul ka yihiin dilka Salvatore Colombo waxa ay ugu yeereen xagjirin islaami ah oo mintid ah ayadoo taa ka duulaya ayaa waxa la bilaabay 14kii bisha July in la weeraray masjidka Sheikh Ali Sufi weerarka lagu qaaday masjidka Sheikh Ali Sufi wuxuu dhaliyay in dadkii masjidka ku dukanay maalin jimcad ay gadoodaan gadoodkaasuna keeno in koofi casti laga soo diray madaxtooyada ay dadkii ku gumaadaan kuna xasuuqaan masaajidkii iyo banaankiisiiba waxa magaalada ku sugan oo cilmi baaris u jooga Professor Charles Gashaktar oo ah nin Mareykan ah Soomaali PhD ka qaatay 700 horraantooda wuxuu aniga shakhsiyan iga warramay inuu codad ku duubayay madaxtooyada deegaandegeeda ku yaala markii wax dhacayaan una maqlayay buuqa iyo qaylada iyo sawaxanka iyo carada dadka masaajidka Sheikh Ali Sufi ka soo dareeray ee ilaa madaxtooyada agteeda yimid ee raba inay meeshii galaan iskuna haystaan ciidankii koofi casta marka 14 Sheikh Ali Sufi markay sidaa dhacday laba habeen ka hor waxa la qabqabtay 12 bisha oo dhacdadii labaad ahayd culamaa u diin ay kamid ahaayeen Sheikh Abdirashiid Sheikh Ali Sufi iyo Sheikh Ali Xaaji Yusuf Xasan oo culamaa u diinka wadan kamid ahaa labada ninna yihiin laba nin oo culamaa u diin waaweyn waalidkood abayaashoodna ahaayeen culamaa u diin waaweyn oo la yaqaano sida Sheikh Sufi iyo Sheikh Xaaji Yusuf Xasan waxa kale oo lala xiray oo gooni loo soo xiray niman siyaasiyiin oo uu kamid yahay abukaatihi weyna caanka ahaa ee u dhaqdhaqaaqi jiray xuquuqda aadanaha ee dhintay Ismaaciil Jimcaale iyo Cabduqaadir Aadan Cabdulle oo u dhalay madaxweyne Aadan Cabdulle Cusmaan marka waa July 9keedii oo la dilay Salvatore Colombo 12kii oo culimada iyo siyaasiyiinta la xiriiray 14kii oo dhacday Sheikh Ali Sufi la weeraray waxa loo yaqaano Black Friday jimcadii madoobeed ee dadka la gumaada la xasuuqay saddexdaas dhacda markay marayso 17kii habeenkeedii waxa la galay oo ciidan koofi casta u galay xaafadda Kaasa Balbalaare ee degmada Hodan oo ahayd xaafad ay degan yihiin dadkii ka soo qaxay gumaadkii ka dhacay sanad ka hor gobolada waqooyi galbeed waxa meesha laga soo xirxiray oo banaanka la soo fariisiyay dad ku dhow 1000 qof oo lagala dhaxbaxay 47 qof 47 xubnood waxay ahaayeen macallimiinta jaamacadaha dad u shaqeynaya hay'adaha waaweyn ee samafalka sida USAID waxay ahaayeen dad safaaradaha wadanka jooga u shaqeynayay 47 qof ayaa laga dhax soocay dadkii banaanka la isugu wada keenay ee xaafadda Kaasa Balbalaare oo ah xaafadda marka hadda wadadan marka Almakoram ka degto oo Siigaale aad u degto oo kor u socoto meesha Bustaale ayay ku imaanaysaa marka Sheikh Ali Sufi waa isu muuqdaan dhagaxa laga tuuro ayaa ku dhacaya isgoyska Sheikh Ali Sufi wadada Kaasa Balbalaare dadkaas oo la soo qaaday oo ciidan koofi castu sidaan ayaa waxa la geeyay xeebta Jazeera waxaana lagu furay baas qoriga baron ayaa lagu furay waayo safaaraduhu waxay wareysteen saraakiishii meesha joogtay qaar kamid ah marka habeenka falka dhacay iyo dad askar ahaa oo xukunka u dhow iyo janano ciidanka ku jiray ayay ka qoreen statements say ugu soo diraan wadamadooda oo ay u ogeysiyaan markii baroonka la furay xabadaha lagu furay 47 mutacallim oo ahaa labeen Soomaaliyeed iyo dadkii qubarada ahaa wadanku anfaci lahaa waxa badbaaday hal nin oo ilaa maanta nool
oo ka badbaaday ninkaas oo mar dambe safaaraduhu say wariyeen la geyn doono guriga Axmed Saleebaan Daflo ahaan jiray sirdoonka Maxamed Siyaad Barre u ahaan jiray marna wasiirka arrimaha gudaha u ahaa mar u ahaa kaaliyaha xogeyaha guud xisbiga Maxamed Siyaad Barre lagu magacaabi jiray xisbiga hanti wadaagga kacaanka Soomaaliyeed mar kalena ahaa wiilka uu sodog u yahay madaxweynaha Maxamed Siyaad Barre waxa hadlay oo soo saaray qoraallo ay arinta ku cambaareynayaan iyo baaritaan ka sameeyay xataa xamar tagay inkastoo baaritaanka meelo badan inay galaan loo diiday iyo dad badan ay wareystaan dadka la qabqabtay iyo dadka goobjoogayaasha ahaa haddana wixii xog ay aruurin kareen aruuriyay labada hay-adood ee u waaweyn xuquuqda aadanaha caalamka the Amnesty International iyo the Human Rights Watch reportkoodina waa yaalaa reportka ugu weyn uguna caan baxay wuxuu ahaa kii ay qortay Human Rights Watch oo ciwaan uga dhigtay a government at war with its own people dawlad la diriraysa dadkeedii dawlad gumaadaysa oo duulaan kula jirta dadkeedii marka xasuuqaas dhacay weyn oo gumaadka dadka loogu geystay wuxuu si xoojiyay caradii ka jirtay caasimadda Muqdisho iyo dadkii ku noolaa wuxuu si abuuray oo si laba jibaaray nacaybkii loo qabay taliska rejiimka ah ee gumaadka ka soo geystay gobolada waqooyi markaas ay waxaanu ka dhacayaan jasiirana waxa xasuuq kale oo ka socdaa goboladan Jubbooyinka Kismaayo sida dokumentiyada safaaradaha ku cad waxa 19 Juulaay gurigooda lagu weeraray gurigooda oo jasiira u dhow General Aadan Cabdullaahi Nuur Gabyow oo uu ahaan jiray Maxamed Siyaad Barre wasiirka gaashaandhigga laakiin markaa 3 bil ka hor bisha April 1989 uu ku magacaabay wasiirka dalxiiska intuu wasaaradii gaashaandhigga ka soo qaaday awoodiisina hoos u dhigay iyo wasiirka arrimaha gudaha xilligaas Maxamed Cabdulle Bacadle oo wada jooga gurigooda ayaa galo la weeraray waxaana weeraray oo isla weerarka fuliyay ciidanka Koofi Casta kadib markii ay heleen warar qaldan oo sirdoon loo geeyay Maxamed Siyaad Barre oo lagu yiri inqilaab ayay ka wadaan guriga jasiira ah madaafiic ayaa lagu garaacay guriga labadoodana meesha laga soo xiray kadibna waxa lagu tuuray mid kamid ah godadkii dadka lagu xabisi jiray oo loo yaqaan baarista xisbiga sanadka 89 warkiyo kooban wuxuu ahaa sanad ay safaaradaha iyo qubarada Soomaaliya daraasaysa ee saadaaliyeen Soomaaliya inay marayso meel aan ka soo noqon lahayn fiiri waxaysan dadka Soomaaliyeed ogeyn 89 waxay ku tilmaameen a fragmented country wadan macnaheedu yahay wadan sidii quraarad u kala go'ay waxa aad maanta maqlayso oo lagu leeyahay wadankii kala go'ay federaal uu noqday waa kala go'een dalkii already adduunyadu waxay saadaalisay 89 wadanku inuu quraarad u kala go'ay meel tusbax go'ay inuu yahay ku tilmaameen waa 89 hal bil kadib July August ayay qorayaan marka waa kaas inay jabhadihii sii bateen maalinba jabhad cusub la furayo wadankii jabhadihii sii kordhayaan wadanku marka wuxuu qarka u saaran yahay marxalad kala guur ah wuxuu marayaa waxa Faransiisku dhoo kaldasak oo ah darbiya soo celiya meel uu ka noqdo male marxaladii uu ku burbur lahaa loo marayaa ma ahane hatta sidii loo badbaadin lahaa ayaa adag waatay sanad kadib isku dayayaan marka odayaashii manifesto 15 May inay warqad u qoraan Maxamed Siyaad Barre oo yiraahdaan tartiib markays asil wadanka la badbaadiyo kuwa ku xigeenada u dhiib asaguna diidan yahay hadii marka aniga ahaan as historian waxaan aaminsanahay hadii uu yeeli lahaa sidii wixii ka dhacay Nigeria military regime-kooda wuxuu ku badbaaday oo wadanka Nigeria u burbur waayeen ayagii isbadbedelayay Maxamed Buhari Ibrahim Babangida Sani Abaja Olusegun Obasanjo maalinba mid isbedelay Maxamed Siyaad Barre wuxuu diiday in Xuseen Kulmiye dhaxlo Maxamed Ali Samatar dhaxlo Ahmed Maxamed Faarax dhaxlo Ismaaciil Allah Bakar saa sheekadu u socdo waata uu xirayaba Ismaaciil Allah Bakar iyo Umar Arta 1982 wuxuu rabay inay qoyskiisa inuu dhaxlo waatay 86 isqabsadeen familkiisa maama Khadiija ilmaheed dhashay iyo Cabdiraxmaan Jaamac Barre waatay xukun ku loolameen oo safaaradaha laftirkooda kulli qorayaan annagana waa ku nood gareena buugeeni ay isqabsadeen xukunka la isku dilay maslaxo dhinac ah iyo Cabdiraxmaan Jaamac Barre dhinac ah kuwii golaha ka haray oo markii dambe yaani asaga ku xigeenada u ahaana ilaa kala safteen oo la kala saftay marka waqtigan dambe ay falkan dhacayaan yaa ciidamada u sareeyay yaa gaashaandhigga haystay wasaaradda gaashaandhigga waxaa jooga Morgan oo gabadha madaxweynaha qabay iyo maslax oo taliyihii ciidanka ah taliyihii guud ee ciidanka qalabka sida Maxamed Siyaad Barre ku 69 ka qabsanayay 89 sano kadib waxa madaxa wiilkiisa maslax oo uu jaran ka dhigay ayaa haysta marka waxaan dhacayaan jasiirad genocide waxaan oo dhanba asaga xukumo meesha booliiska waxa haysta Cabdiraxmaan Cabdi Xuseen Gurwade oo ah gabadha madaxweynaha asaguna qaba wixii dhan waxay ku soo urureen wax caa'ila ah sirdoonkan wuxuu ka qaaday Axmed Saleebaan Dafle marka Maxamed Jibriil Muuse mar dhexe u dhiibay kadibna cirdaya markaan hayay
marka wadankii wuxuu iska noqday wadan caa'ila ah oo xukunkii uu yahay yani waa ka soo tagay qabiil iyo jufo iyo jilib iyo qaraabo waa ka yimi caa'ilo maraya marka xidid iyo xigaalo maraya Soomaalidana waa fiirsanaysaa oo wax ka hadli kara ma jiro cid hadashana de waa xabsi ku dambeynaysa mugta iyo cid cararto jabhad samaysato wadanka fakatay ayd wax u dhaxay ma jirin 86 koor wuxuu ku soo wada wadanka waxa loo yaqaan new patrimonialism inuu isku celiyo wax kala laaluusho oo wixii inta wax si wixii carra dib u soo celi jabhadaha qaar in wax kala dabar new patrimonialism ku wada waxaan wax kala si legacy-ga ka tagay waa wadan burburo ilaa maanta si loo soo kaba laaya ilaa iyo maalinta maanta ah loo soo kabo oo hadda markay na weydiiyaan gaaladii maxaa keenay war ilaa halkan wadankan waxaan isku dayaa inaan fahamsiiyo social structure-ka Soomaalida laga dhaxeli karaa dhaqankeeda bulsho kasta dhaqan u gooniye leedahay hadda Ethiopia waa naga dhaqan duwad Ethiopia waa wadan muddo dheer imperial rule lagu hayay oo dadka madax laga soo ciqaabay dadkii loo soo ciqaabay dhaqankoodana de muddo dheer oo dheer ay ku soo jireen waxaan waxay aaminsan yihiin oo ay ku dhaqmaan ayaga oo naga duwan yihiin ninkii meesha qabsada inay iska daba galaan oo waxay aaminsan yihiin falsafad u eg tan Soomaalida hadaan ku turjumno dhaxayso ninkii hooyaday guursada waa adeerkay hay xukumo laakiin Soomaali saas kama yeelayso Soomaali dhaqankeedu wuxuu yahay xukunka ay aqbalayso kaliya inuu noqdo labo waxyaabood xukun ku salaysan compromise iyo consensus cid ka yeelaysa male inaad iska haysato nin walba waa dagaalamaya ninka Soomaali ah de waa dhaqankiisa waa ogtahay laguma hayn karo xoog waxa kula joogi kartaa kaliya waxa uu ogol yahay wadar ogol feeri maxaa waay dhaqankan ah geed hoostiisa ku shaqeynaa oo geedka nin walba marayo uu soo leexanayo uu talada dhiibanayo egalitarian system waa nin halka maraya iska soo leexanaya gar ka socota hiiraan ayuu ku darsanaa cid dhaysa male kumaada jirin kartaan waa dhaqankoodii asaas ah dhaqankoodaas lagu wadi karaa marka oo lagu dawladeyn karaa maahan dhaqan kale oo imposition oo dictatorial ah ma yeelayso horena ma yeelin haddana ma yeelayso ma wuxuusan fahmin dhaqanka Soomaalida social structure-ka Soomaali ku dhisan tahay dhaqankeeda oo ah inaysan jeclayn wax dheeraada xukun dheeraada ma jecla taariikhdeeda hore hadda aqrisid hadda qarniyo waxay iska soo rideen Caraweelo waxay rideen Geedi Baabow historiadooda hadda fiirisay suugaantooda ka dhaxelaysa maalinba waxay la daalaadacayeen nin dictator oo soo baxay taariikhda fiiri legendka Soomaalida ma jeclan taariikhdooda iyo dhaqankooda qof iska soo taagan marka Matiyuusan fahmin de wuu u jeedaa marar badan uu saadaalay asaga la firkiisana la isku soo noqonin way wuxuu ogaa Soomaalidu xukun dictator oo saan oo kala haday ridaan inay muddo dheer qaadanayso inay soo kabsato dadka wax ka qoray iyo hay'adaha wax ka qoray arrimaha ka dhacay Soomaaliya maxay ku saadaaliyeen markaad fiiriso sababaha aad leedahay hadan kugu celiyo waxaas oo dhan oo gabadh falaa u dhacayo marka line ay dhacdo oo gumaad dhaco waxa dhalanaya caro waxa dhalanaya cabsi waxa dhalanaya colaad waxa dhalanaya nacayb waxa dhalanaya karaahiyo wax walba la socdo mar hadda dad laysid feeri asaga waxay ahayd jabhadaha kacay wadankan jabhadu waxay ahaayeen haddaad fiirisid jabhadu maxay ahaayeen dad asaga la shaqeyn jiray u badnaayeen ay ahaayeen oo xukunkiisa ku hoos jiray oo dareemay in aysan meeshii lagu ciqaabayo oo la leeyahay annaga wax ka dhignay annaga wax ku siinay wax aan la wada lahayn ay dareemeen waa fakadeen dadka dhan u jeedid waa dad ku dhex jiray systemka ma garanaysaa oo fakaday oo jabhadihii samaystay qaaday qaar asaga la socday xataa taageersanaa Cabdi Maxamed Amiina kamid abwaanka weynaa oo asaga u heesay 1969 ninkii tiriyay wadadii caday cagta saartay ku caraabiyo cimrigii jiriyo ninka lahaa jabhadu ahaa toddobaadkii dhabaadkeedii ilaa 89 soo noqdo Maxamed Saabar soo celiyay kadibna de wuxuu alifayay 90gii January heesii lagu soo watay Maxamed Siyaad sida warninkow dhinkow iyo Langurusal gada iyo marka dad noocaas ay ahaayeen gacaliyo solo ma guddoonsatiin baahida gudbane gurigeena toos inagoon ka guban gaadhi raaxaliyo laangaru sargado gaadhi raaxaliyo laangaru sargado gob inaad ku tahay geeska Afriko
dhibaato xoog leh oo wadanku galay ahayd asaguna maareen waayey oo nabad ku maareen waayey dibashiin ku maareen waayey mana ku maareen karin wax kaliya yaqaana waxay awood ka soo mugtahay xukunka fashiistada ku dhex jiri jiray markuu askariga noqonay ayuu wuxuu askarta noqday 30 iyo 35 fashiistadii maxay ahayn kuwa Talyaaniga xukunka gumaysi oo Soomaaliya soo maro ku u liitay ahayn wadanka waxay xukumayeen 1922 ilaa 41 Ingiriiska ka xoreeyay wadanka nimanka aad maqlaysay ahayn oo kali asayl soo maqal oo dadka ku istaagay oo dadka ku falay nimankaas ahayn waa fashiist shaariba dhaadheer nimanka abuuray Soomaaliya ka abuuray bartay oo meeshan hadda Mall of Muqdisho loo bixiyay oo ahaan jirtay Courage del Sud la mari waayay ahayn oo Soomaalida iyo Talyaaniga kala qaybisay South Africa ahayn nimankaas asaga u ahaa askari intelligence u qaabilsan waardiyo ahaa oo ayagu la shaqeyn jiray wixii wadanka ka dhacay ee dawladdu geysatay ama qabaa'ilku geysteen yaa mas'uuliyadda qaadaya okay si cilmi haddaan wixii u fiirino wixii wadankan ka dhacay laba way waa state violence iyo clan violence يعني ذنوب كل عضي أما ديق لو جدادي يدبعت له جيست مجا قرنك يمجا قبيل Soomaaliya taariikhi u lahayd intay jirtay inay qabiil dhiig isugu geysato isku dish ilaa maanta isku dilaysaa laakiin wax cusbaa waxay ahayd oo xataa gumaysiga uusan sameyn state violence in magaca qaranka la isku dulmiyo waana wax la isu aamin laayay ilaa maanta oo ninka meesha qabtaba cid u tanaasuleysa ama isu wada dhiibaysa aysan jirin oo goboladan xataa hadda isu dhiibi laayihiin waayo waxa laga baqayaa inuu dulmiyo oo qabiilkiisa uu helay kuwan ku laayo state violence-ga cusub marka waxa Soomaali ka wada xaalayso oo ay wada lahayd oo wax iska weydiinayso loona baahan yahay in maxkamad gaar ah loo saaro waa wixii lagu geysta magaca state violence waa magaca laba qabiil wixii isu geysatay de waa kumanaan sano soo socotay oo hadda labada beelo maanta isdilaysa hadda dhex tagto hadda damacda conflict resolution in arintooda xaliso waxaa laga yaabaa inay ka hadlaan cases murder oo dhacay oo isku dileen ayaga ama ay dad ku kala dileen oo diyo ku kala qaateen 200 sano ka hor inay isweydiiyaan laga yaabaa iyo xilligii gumaysiga wadanka soo galay in la yiraahdo maalintaas dad naga dileen waa wax furan oo aan dhamaad lahayn oo Soomaali dhaqan u leedahay ee isku dilaan laakiin tan ugu daran waxay tahay waa wixii ku dhacay state violence qaranka la wada lahaa oo cashuurtiisa qof walba laga soo qaaday oo eed qof walba inuu protect gareeyo oo xafido waardiyo dadka lagu gumaaday waqooyi inta loo tagay diyaarado lagu kiciyay oo diyaaradahu iyo ciidanka galayna yihiin ogow ciidanka waqooyi galay Soomaaliya oo dhan isugu jireen ciidanku meesha dulgeey فهمت قبلنا هذا قار جبلان إذا ما قبيله هيران قبلنا نحوي كذا دعاي قبيله كوه بينا هذول كشخ يستكوان لكن حاجة وحدول جي إذا قلب كشدو قبائل ماشي دقنوا هو بينا دواجرت ويري يعني لايا أو حاجة ويقة dadkii falkan geystay state-ka u shaqeynayay dulmiga geystay qabiiladooda la joogaan cid haysatana ma leh haytaan maxaa laga xalin waa dameer la'aanta fiiri waxaa jira buug laga qoray qabyaalada taala Afrika tan Soomaali xataa ma Afrika oo dhan uu ka qoray Jean François Boyard buug dhan oo kaga hadlayo political tribalism qabyaalada siyaasadeed marka waxyaabaha uu macnaynayo waxa kamid ah oo yani lagu dabaqi karo Soomaaliya qabyaalada wax ugu weyn ee qofka ka qaada dameerka waayo wax ugu weyn oo waxyeelaa ee qofka u geysato Afrikaanka ah ethnicity waa mogtahay wax ka jira anagana waa colonism wax Soomaaliya laakiin waa isku midkii caadafada dhinac walba isaga midkii waxay ka qaadaa dameerka fiiri waxaad arkaysaa nin dhan oo gacan ku dhiglaa oo dhigicaba oo qabiil lagu daafacay oo loogu heelinayo qabiil kan ugu heelinayana aanusan eegayn islaamnimadii Soomaalinimadii ilaahay ka cabsigii wax dhan uu safiirnay oo fiirinayo nin qabiilkayga ah ayaan daafacana u leeyahay oo uusan dhayn war dadkan uu gumaaday eeg oo wax yaab kala waayo oo aan laga lug bixin waana wax ay Soomaalidu dhaqan u lahayd ma aha waxaan dhihi karnaa ku cusub yihiin waxay weligeed dhaqan u lahayd waa sidii qabiilka isku difaaci jireen ay qarankii state ku difaacay state-ka gormay daafacayaan hal mar ay daafacayaan waxay daafacayaan marka nin ayaga uu xukunka joogo markuu ka dagama daafacanayaan state wax la yiraahdo ma yaqaanaan hadda baar adiga hadda kuwa farmaajo daafacaya iyagu meel iyagu adiga dawladda dambe ma daafacayaan mucaarad ku yihiin ama ka soo horjeedaan ama waa ka aamusayaan ma sheeganayaan afka ka qabsanayaan inta maanta jirta ay wadaninimo fake ah ku tusayaan oo fabricated ah oo constructed ah oo creation la abuurayo oo calusaad ah in sarcaada lagu tusaya wax ka jira ma jiraan ma xal marka arrimihii dhacay markaad fiiriso cumqiga ay leeyihiin siday ugu dheeriyihiin see loo xallin karaa oo Soomaalidu ay uga bogsoon kartaa gaar ahaan markay timaado arrintan awood qaybsiga iyo siyaasadda waxaan maraynaa marxaladii ay mareen wadamada burbur oo dhan laakiin anagana lama marsin
waxaa naga hortaagan international community-gaan xalana joogaa naga hortaagan inaan marno waa laba waxyaaboodba inaan marnay diidan yihiin waana waxa aan isleeyahay anigu waxay rabaan in colaadda Soomaaliya iska soo dheeraato oo aan la joojin iska socoto labada waxyaabood waa maxay waa in la helaa guddi dib u heshiisiin qaran ah oo waxaan dabagala waa in la helaa maxkamad qaada danuubtan guddiga dib u heshiisiinta iyo oo dad qubara ah iyo odayaal iyo dad waaweyn la isugu wada geeyay iyo mutacalimiin waa inay ka fakaraan qaabka dib u heshiisiinta loo samaynayo waa in la sameeyaa qaab iscafis ah laakiin qofka waa inuu qirtaa for example tuko kale hadda gibilay ayuu dad ku gumaaday sanadka hore research kasoo sameeyay gibilay dadkii aan u tagay ugu dul ooyeen markaan dabcan wax wareysto waa lagu dul baroortay anigii yaabay saan u sii wadi lahaa xogta u sii aruurin lahaa mar joojina mar waa bilaaba mar dhex waa joojina si aan dareenkooda u dajiyay magaalada gibilay waay ayuu ka ahaa mogta 50 bergeeda ku haystay ya guutada shanaad dadkii uu gumaaday marka qabiil uu inta u kala saaray askartiisu qabiil u kala saaray iska dhaaf shacabkii askarti ayuu inta kala qaybay bodyguards soo wareystaan aniga iyo kuwa isaga la shaqeynay tu kala saaray ayuu wuxuu baawar la saaray la maanta lama hayo waxay dadka loo inayaan dadkoodii oo lafooda ay sameel ku sheegeen waay bal ilaahay baan ku dhaltay ka shaqeeyaday meel ay ku sheegeen qaranka Soomaaliya waay wax saa sameynay oo qabiil u kala saaray qarankaas dib u dhalana meel dadkii askarti xoogga dalka ilaa 60 kila soo dhisay ee 80 labada qabiil inta loo kala saaray xagga u kala baxa ay u soo jeedaan dib dambe askar isku aaminaysa ma jira oo dhalna duke oo haddana la xukumo maxkamad xukuntay in safaaradda Soomaaliya oo lagu arko madaxweyne soo dhaweynaa ka war damir la'aanta ka mid tahay oo dad daafacaan oo farmaajo isla sawiro waxay ka mid tahay damir la'aanta qabiiliga ah qabyaalada keenayso ya qabyaalada keenayso adigaan lagu eedanaa qabiil asagayana sameeyay ku dhex jiro dhaxda baalanaay waa tayaab kale waay oo aan runta laga sheegin ma garanaysaa laakiin wax walba tan ka soo baxay arintan waa arin noo taalo oo dadkan iyo dalkan kalama tigin kalamana in dadku wali waa isku qasban yihiin laakiin cid isku hayso oo ka talisay la yihiin maxaa nala gudboon marka Soomaaliya waxaa nala gudboon intaan Mareykan iyo ku dhex raadin lahayn iyo Ingiriiska iyo dibadda laga dhex raadin lahaa iyo Belgium iyo loogu tagi lahaa kuwii danuubta galay in dawlad Soomaaliya xalaal la helo oo dadka matasha maxaa dawladda wadanka looga helay legitimacy maxaa lagu walaayay oo ay ku haystaan shabaabka iyo cadaaladii fulinayaan Soomaaliya justice system cadaaladii ful hadda u dacwato tiraado tuka jooga meesha la yiraahdo Beledul Amin iyo Mubarak iyo Jilib iyo waa ku soo qabanayaan shabaabka mugtay waa in wax cadaalad la helaa systemka cadaaladda ayaa korortad ah dawladda Soomaaliya cadaaladda day jirin security ma jiraayo dawladnimo ma jirayso waa in qofka qof soo eedeeyo loo maxkamadeeyaa oo loo soo qabtaa mugtay marka intii Mareykan iyo Washington iyo Virginia loogu tagi lahaa tuka waa in maxkamado garsoor cadaalad la sameeyo oo qofkii Soomaaliga dhibka sheeganay loo qabtaa qofkii dhibaateeyay oo magaca qaran ku dhibaateeyay mugta hadda dad wax dhibaateeyay saraakiil hadda la haystaa oo gurigii Abdurrahman Shukur weeraray feeri hadda waxa laga dhigayaa dawladii lacagteedii lagu daafacayaa dad danuub galay oo war criminal ah oo adduunka ku dhagan adduunka kala dacwoonayo ku dhagan Soomaaliya xataa adduunka kala qeylinayo oo la danuubay galeen oo gumaad ay geysteen dad systemka dawladda maanta ku dhex jira oo Soomaalina ay wada ogtahay systemka ka mid yihiin madaxweynaha kamida ra'iisul wasaaraha kamida waxa soo galay kuwa ciidamada xukumo waa loo raacana hadda feeri farmaajo marka xukun dago soo ma ogid Maxamed Ali Samatar inuu noqonayo oo gumaadka guriga Cabdiraxmaan Shukur ka dhacay asaga loo raacana baasaboor diblomaadaan wataa ninka ma yeelay sida Maxamed Ali Samatar loo dacweynaa oo loogu sheegana dambiga waxaana la weydiinaa war meeshan 6 qof lagu aasay dharkoodii waa la soo faagi doonaa ogow kuwii la aasay kuwii aasaya sheegi doona markuu farmaajo meesha ka baxo meesha ay hadda ku jiraan ama ha lagala baxo ama lagu jiray meel kasta oo la geeyo kuwii sii geeya sheega Soomaaliya war uma kala qarsoona bari marka farmaajihii la fiiyaa la dul geynaa maxkamadda meesha ku dambeeyo hadda systemka in la isku dulmiyo oo powerka siyaasiyiinta qaara hadda shacabka kaliya lama dulmiyo siyaasiyiinta isku dulmiyo power kuwa isla joogay kuwa kale arinta wali waxa laga baran Soomaaliya marka fiiriso wuxuu gacan ku sameeyay hatta dimuqraadiyadda sheeganayna xataa wax 10 oo laga bartay ma jirto waana la filayo ogow in xukun dictator imaanayo oo saan la isu galayo 22000 oo Soomaaliya mid halkan jooga hadda oo odaya waayay la yiraahdo professor Christopher Calafab oo professor jaamacadda Cambridge wuxuu dhigaa Cambridge hadda retire garoobay waa wadankan u dhashay buugu qoray oo Soomaaliya iyo Afrika ka sheekeynay waaba midaan la yaabana muujada ah noodkaas meel gooni aan dhigtay uu leeyahay si ku socoto state building ka Soomaaliya ka socdo qaranka la dhisay maalin walba international community ay ka kabayaan soo u socdo marka daba nin dictator gacanta u galay 22000 kii qoray
waxaan aad sheegto dhan qofka u baahan inuu baaro wax ku karadi kara waxaa lagu tagayaa jaamacadda London School of Oriental and African Studies ay yaalaan dokumentiyada aan ku horkeenay African Studies School of Oriental African Studies oo sawaas jaamacadda London qaybta Afrika laga darso iyo bariga iyo Asia ayaa lagu tagayaa qaybta Soomaaliya u tagayaa 1 2 3 ilaa 3 qaybood oo Soomaaliya leedahay meeshaas oo ka soo helaya xogahan oo dhan meeshaas ay yaalaan hatta waxa yaala jaraa'idkii Hagan iyo Soomaaliya ka soo bixi jiray Deetameeyada waag Maxamed Siyaad iyo hatta dalka yaalo lagu tagayaa lixdameeyada soo baxay waxaas oo dhan dokumenti ah wixii ka dambeeyana the National Archive ka la tagaa British Library la tagaa meel badan waxa waqti Soomaaliya daadsanta Library of the Congress xog badan taalo Roma oo aan tagay sanadka hore ka soo sameeyay archive-ka Talyaaniga wax badan yaala meel badan wax loogu tagaa Soomaaliya ardeed meel wax ku qarsoon yihiin ma feeri archive-ka wadanka haduu dumay oo yani la baabiyo la balqaystay waagi 1991 dawladda dokumentigeedii waxeedii taariikhda xataa oo taalay meesha Gaareza oo xamarweyne oo ilaa Saciid Barqash hadii la baabaashay wax ka haraya la adduunka oo dokumentiga dawladda hadda bulletin official iyo kale kontonka ilaa 89 aan waa hayaa gacantan ku hayaa aniga kuuba hayaba oo igu jira meeshan ilaa waa dokumenti official waa bulletin soo baxay digreetooyinka dadka lagu magacaabay lagu sameeyay institutionada wasiirada lagu magacaabayay lagu magacaabayay agenciyada yani hay'adaha dawladda ilaa kontonkii markii dawladnimada diyaarinteeda la bilaabo office ilaa 89 waa la daabici waay wadanka waa fragmented wadan eber waa wax la daabac ma jiro oo dawladda daabacday marka intaasaan haynaa anaga hanolaad waxaan ugu talagalnay wacyigelinta iyo wargelinta bulshada Soomaaliyeed waxaadna maalin walba haddii aad leedahay ka daalan kartaa barta internetka aan ku leenahay ee hanolaato.com ama YouTube-ka oo aad subscriber ka noqon karto si aad u rukumato muuqaalada cusub ee soo tabino maalin walba haddii aad leedahay